runtii waxaa sharaf weyn noo ah in maanta uu kulankan lagu dooranaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa uu noo soo dhammaado. waxaan uga mahad celinayaa shacabka degmada Eyl oo runtii xamaasadda doorashada markii hore iyo haddaba ay aad u weyn tahay. waxay arrintaasi muujinaysaa dareenka dimuqraadiyadeed iyo tartanka caafimaadka qaba. waxaan si gaar uga mahad celinayaa mas'uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland oo runtii si wanaagsan uga soo shaqeeyay howlahan hadda halka ka soo gabagaboobay. dabcan degmadan waa degmadii saddexaad saddexdii degmo ee hordhaca u ahaa doorashooyinka. waxaana ilaahay mahadiisa inay maanta si guula ku soo dhammaatay. waxaan sidoo kaleeto u mahad celinayaa dhammaan degmooyinka kaleeto iyagana guddoomiyayaashooda saasoo kale loo doortay. waa marxalad cusub oo aan rajaynayo inuu dalkan hore ugu socdo. dabcan doorashooyinku way nagu cusub yihiin, ururada iyo siyaasaddu waa ay cusub tahay. wax badanna waa laga bartay oo xagga shuruucda iyo habka doorashada loo geli doono. waxaan rajaynaynaa in hore loo sii wadi doono wax walba oo doorashooyinka xeerarkeeda ku saabsan si loo gaaro horumar la taaban karo iyo kalsooni ku dhisan in dadku codkooda uu sidii ay rabeen uu u shaqeeyo. waxaan rajaynaynaa inay Puntland u dhalatay maalin cusub, 3 golo oo degaanoo la soo doortay oo golayaashoodii ay maanta shaqaynayaan. waxaan rajaynaynaa inta dhimanna inay golayaashooda si wanaagsan u shaqayn doonaan muddada soo socota. dabcan kulamadan waa hordhac, waa xaflad, khudbado badan halka uma baahnin. waxaan rajaynaynaa inay halkaas nooga sii socon doonaan howlaha shaqo ee la sugayo. degmada Eyl oo degmo taariikhi ah oo degmo dhaqaalaha Puntland qayb weyn ka soo qaadatay. waxaan rajaynaynaa in golahan cusub ee la doortay uu firfircooni gelin doono, horumarkeedana uu ka shaqayn doono, isbeddel muuqdana la gaari doono haddii Ilaahay idin ka dhigo. waxaa dawladda Puntland ka go'an inay degmadan si dhow ula shaqayso mashaariicda horumarinta, in ay wax ka qabato, inay noqoto meelaha madaxda dalka soo booqata la keeno, inay noqoto meel loo diyaariyo siday u noqon lahayd meelaha taariikhiga ah ee dalxiiska loo yimaado. waxaan uga mahad celinayaa ganacsatada waayadan dambe u soo jeesatay ee hoteellada cusub ka dhisaysa. waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay horumarka ka socda dhinaca waxbarashada iyo dhinacyada kaleeto oo dhanba. dabcan horumarkaas iskama imaan, dadaal dheer buu ku yimid, marxalado badan soo maray. maanta marxalad cusub buu maray. marxaladdaana cusub waan rajaynayo dadka reer Eyl inay la xisaabtami doonaan madaxda cusub ay u doorteen. waxaan ku rajo weynahay inay degmada Eyl isbeddel muuqda oo la taaban karo ay yeelan doonto. waxaad ogtihiin maanta waxaa la soo dhagax dhigay jidkii, inkastoo hore loo dhagax dhigay, laakiin kan waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii taabagala ee rumooba Ilaahay idankiis. dawlad ahaan iyo shacab ahaanba waan ka qayb qaadan doonnaa. caalamkana waan ka rajaynaynaa ciday gacanta ka geysatay inay ka qayb qaadan doonto. waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka caddeeyo dawladda Puntland inay garab sii doonto TPEC oo ah guddiga doorashooyinka u xil saaran oo uu qaban doono haddii Ilaahay idmo inta ka dhiman. adduunkana waxaan ka rajaynaynaa hay-adaha deeqda ka geysta arrimaha doorashooyinka inay gacan ka geystaan. waxaan rajaynaynaa waxa maanta dhacay inay tusaale fiican noo noqdaan, in shuruucda dalka la ilaaliyo, in khaladaadka halka ka soo baxay uu dibdib u dhicin. qofku waxaa la rabaa hadduusan aaminsanayn ururka uu ka tirsan yahay inuu marka horeba oggolaan. waxaad ogtihiin dadka halka fadhiya shakhsi looma dooran, ururaa la doorta. in la ixtiraamo dastuurka, in la ixtiraamo xeerarka doorashooyinka, in la ixtiraamo nidaamka dimuqraadiyadda waa muhim. weli waan dareemi karnaa bulshadeennu inaysan u bislayn arrimahan, in arrimaha qabiilku weli saamayn ku leeyihiin waan dareemi karnaa. kala aragtiduwanaan aan ku dhisnayn sharci dhibaatuu noo keenaya. waxaan u baahannahay kala aragtiduwanaanteenna inaan sanduuqyada codaynta ku kala bixinno. qofka og inuu kalsoonida dadkaan haysta in gacanta la taagay in lagu shubo wax farqiga u dhexeeya ma leh. maxaa yeelay qof kasta ururka uu yahay wuu arkayaa meeshuu aaday, waana sax sida nidaamka ah. qofna ururkiisa haddii uu urur kaleeto
oo ka tira badan uu la gelayo inuu yidhaahdo ururkaasa wax la dhisaaya waa uu xaq buu leeyahay laakiin ururada nambarka badan haysta xaq waxay u leeyihiin inay dhisaan golaha iyagaana xaq u leh marka waxaan rabnaa shuruucda iyo nidaamkan in la ilaaliyo xasiloonida in la ilaaliyo horumarka dawladnimadana waxaan runtii ka cudur daaranaynaa gaabiska ka yimid dhinaca dawladda iyo dhinaca TPEC oo ah xagga wacyigelinta doorashooyinka oo aad u hoosaysa laakiin waxaad ogaataan saddexdan degmo waxay ahaayeen in lagu tijaabiyo meelaha dulduleelada naga haystaan waxaa cad in dulduleeladii ay hadda soo baxeen qaybtood waxaad ogtihiin xilligii la codaynayay meelaha qaarkood inay ku badnaayeen dadku hal seejana ay ahayd meelaha qaarkood ay ku yaraayeen meelaha qaarkood waxaa ogtihiin dadkii oo israjiisgareeyey inay wakhti u waayeen inay kaarkoodii qaataan oo codeeyeen waxyaabo badan oo khaladaada soo baxay waxaad ogtihiin xilliyada registrationku dhacaya iyo xilliga la codaynayay inay laba marxaladood kala duwan ahayd xilliyada abaartu inay dadku hayaamayaan dadkeennu reer guuraaba u badan yahay waxaas oo dhan waxay ahayd wixii laga bartay oo aan rajaynayno degmooyinka dambe oo aan geli doono inay cilladan nooga imaan aad baad u mahadsantihiin xafladdani waxay ahayd xaflad runtii muhiimaddeeda gaarka leh inaan xafladdan ka soo qayb galo waxaa saldhig u ahayd degmada eyl oo degmo taariikhiya oo Soomaaliya oo dhan taariikh badan ku leh oo madax badan oo Soomaaliyeed oo weliba kuwa caalamiya noqday magaaladan ay dhashay sidaad ogtihiin waxaad ogtihiin Cabdiqawi magaaladaanu ku dhashay oo gaaray qof bini aadan oo Soomaaliyeed heerka ku sarreeyo u gaaray inuu maxkamadda caalamiga madax ka noqdo waxaad ogtihiin magaaladan waxaa ku dhashay dad fara badan oo sidoo hadda dadka markuu u kala qaybsamay magac ku yeeshay oo deegaano kale ka soo jeeda hadda magaaladatan waxay ahayd magaalo jamcisay dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan aad uga xumahay guryihii quruxda badnaa iyo dadkii aan meeshan deganaa inay maanta faaruq tahay guryo fara badan dudusan yihiin golaha kale waxaa la rabaa inuu tusaale u noqdo magaaladan haybadii iyo sharaftii lahayd inay ku soo celiso inay noqoto magaalo loo dhan yahay inay noqoto magaalo Puntland iyo Soomaaliya ay ku faanto runtii waxaa sharaf noo ah madaxda dalkan timaada waxay yiraahdaan eylhana la geeyo madaxweynaha jamhuuriyadda hadda u dambeeyay nasiib darro ciriiri waqti oo haysta darteed wuxuu jeclaa inuu eyl soo booqdo yimaado waxaan rajaynayaa inay magaaladatan noqoto meel kulmisa madaxda caalamka iyo kuwa Soomaaliyeedba oo loo soo dalxiis tago waxaan laga rabaa xadaaradii in lagu soo aadaa inaa muujisaan waxaan rajaynayaa dadka reer Geyl ee xadaariga ahaa yaan taariikhdu inaga xumaanin yaysan taariikhdu inaga xumaanin midnimadiinna ilaashada horumarkiinna ilaashada kala aragti duwanaantiinana ixtiraama ma diidayno inaad kala aragti duwanaataan laakiin waxaan rabaa markay doorashooyinku dhammaadaan wixii lagu heshiina dhamaato waxaa ceeb ku ahayd eyl inay muddo ka badan kuwii degmooyin kaleeta ee dib u dhacdo arrintaas farsamo xumadeeda waxaan rajaynayaa inay meelaha kale ka dhicin idinkana inaad ka bogsootaan wixii khaladaada oo dhacay waxaan rajaynayaa madaxda la doortay inay si daacad ah oo siman ugu shaqeeyaan maanta laga bilaabo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ma aha dad urur gaara u shaqaynaya waa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada eyl waxay u wada shaqaynayaan dhammaan shacabka degmada eyl waxaa la rabaa golaha deegaanka ururada kale ku jira inay si wanaagsan uga dhaqmaan taladana waa wada leeyihiin 27 iyo ilaalinaya shuruucahooda iyo xeer hoosaadku ay ku dhaqmi doonaan waxaan rajaynayaa qofkii ku dhaqmi waaya xeerka iyo shuruucda dadweynuhu idinkaa doortay xaq waxa u leedihiin inaad boos ka qaadaan cid dambe oo dawladdu ay ka qaadi doonto ma jirto xilka laakiin golayaasha ayaa ka qaadi doona oo matalaya shacabka waxaan rajaynayaa inay noqdaan dad lala xisaabtamo accountable u ah bulshada ilaaliyo shuruucda iyo nidaamka bulshadana u adeega dawlad ahaan annaguna waxaan isha ku hayn doonaa mashaariicaha halka ka filaaya iyo sidii u socon doonaan waxaan rajaynaynaa isbeddel muuqda inaad arki doontaan waxaan ku rajo weynahay iftiinkan abuurmay ee doorashada qofka iyo cod ah oo habeenbarkaas intaa u fadhiyaan waxay markhaanti ka tahay siday dadku u ilaashanayaan wixii ay wakhtiga ka galay oo juhdigu ka galay oo codkooda ay ku doorteen dadka inay maanta goobjoog u hadaan arrintaas waxay farxad gelinaysaa annaga oo reer Puntland Soomaalida oo u humuum qabta inay taladooda la soo noqdaan iyo caalamka oo rajaynaya Soomaaliya oo 30 sano siyaasadeeda wareer ku jira inay deganaansho siyaasadeed hesho waxaan rajaynayaa dooduhu inay ka dhaxdhacaan golayaasha dawladda
oo ay maraan shuruucdii qawaaniinta xilligii qof walba looma dhamma iyo qaylo waa laga gudbay waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeyo cod iyo kalsooni in lagu kala baxo iyo shaqo hufnaan iyo sharci waxaan rajaynayaa bulshada qiimaha badan ee halka horteeda fadhida ee reer eyl inaad garbaha qabataan dhismaha golahan oo ka duwan golayaashii deegaanka hore aan arki jirnay aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inuu maanta ay noo noqoto maalin taariikhi ah waxaan rajaynayaa inay magaalada eyl u noqoto beej cusub oo horumarkeeda saldhig u ah waxaan rajaynayaa isbeddelka tacliimeed ee hadda ka socda iyo macallimiinta ajnabiga halkan la fadhida oo runtii aan muddo aysan helin wax ka badan inay hesho waxaan rajaynayaa guryaha dayacan in dib loo dayactiro waxaan ballan qaadaynaa guryaha dawladda inaan dib u dayactiri doonno dawlad ahaan muddada aan joogno waxaan ka rajaynaynaa golayaasha deegaanka guryaha ay dawladda hoose leedahay inay dayactiraan dhammaantood gacanna waan ka sii doonnaa waxaan rajaynaynaa dadka reer eyl ee dibadda iyo gudaha jiraba waxaan farriin halka uga dirayaa qof kasta oo degaan halka ku ahaan jira guryo ku leh inay guryahooda dayacan ay dib u dayactirtaan cid kasta oo reer eyl ah ama meesha ugu dhowo garoowa ha degto oo haga guurto ama meelo kale ha aadaan waxaan rabaa magaaladan taariikhiga in taariikhdeeda dib loo soo celiyo waa taariikh ummadda Soomaaliyeed leedahay waa taariikh dadka reer Puntland leeyahay waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar hawsha maanta la gaaray waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha xogeenka in Ilaahay u fududeeyo wassalaamu calaykum